kusoo dhow gurigeygi maasha Allah jazakallahu khayran waa mahadsantahay أجمع ويا تريبتو وهو قدام gabadhan waa gabar youtuber ah caasha lafta la dhahaa walaalahay asxaabta ku jirta waxaan codsanayaa inaad booqataan hoos baan soo dhigi doonaa insha Allah waa inaad kusoo subscribe garaysaan soo dhawaada walaalahay kuwa hoganaya jeelka miyaynan wararkaynin miyaan isagoo hubana miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin miyaynan wararkaynin miyaan isagoo hubana miyaan dhalinyaroo helaynin miyaan hoos loogu sheegin musiibada la hooli waayay faa ummadii u qaatay dhibkaahaygiisay unka midwayaasii huraysa okay aday wareysanaysa maasha Allah soo dhow horta marka koowaad waad mahadsantahay tan labaad waxaan ku weydiinaa ha maxaa kugu yaabka badnaa wadanka markaad soo gashay Canada special Toronto markaan soo galay horta waxa iigu yaab badnaa mataqaanaa waxaan soo degay markaan waxoogaa maalmo joogay building baa la dejiyay buildingka aniga waxaan arki jiray guri house iyo waxba iska deganaan jiray buildingkii markii la soo dejiyay waxa ka dhacay guriga dab baa ka dhacay dab weyn kama dhicin laakiin waxba qiiq iyo waxba ka yimid marka gurigaada ha qiiqa marka al armta yaalo moogtahay weliga al arm yeelisa ma maqal markaas dabaqa kooy tabnaad baan saarnayna odaygii xaata intaan toosinay ma aragtay odayga uu basi yaqaanay aniga wax baa ku cusboonaaday odayga intaan toosinay xitaa waxaan sidii ciyaalka badbaadiyo la baxso kaba la'aan 3 ciyaalan haystay xaamilaan ahaa laban meesha mid labadii yaryaraaban labada dhinac ku qaaday aniga markaas culusba ayaa labada dhinac ku qaaday kii kale iga soo daba carar baan markaan intee ordoon malaha 5 dabaq hoos si degaan odayga waxaan dhahay soo carar aniga degdeg tahay oo kabala oo labadii ciyaal dhinacan ku wata baan dadaq meel baan ka degnay albaab xagga dambe baan ka baxnay saa waxaan saaragnay kuwii fire ka soo galay markaasay u dhahay maadaa wax soo gubtay waa gartay mayaan dhahay moogta wax islaa buildingka goormu bug dhihi doonaa wala tii igu yaabka badneyd baad gabadha marka waa iska cusba xaafadan ku cusbaa gabadha marka maanta aragtay gabadh Soomaaliya building igu degan halka igu salaanta hadda way yaani maantaas baranay maantaas ahayd waxa ku soo xusta maanta aad ordaysidoo kabalaad building ka soo degtay hadda caadi ila noqotay anagoo hurdaysa ay alarm ku qayliyaa waxba ma ahan yaani waa wax iska jira hadda waa la qabsatay ha laakiin maalintaas waxaan mooday hal mar inuu sa u bood doono buildingka waxa man meelaha ka daawin jiray horta dhibaato badan ay lagala kulmaa marka qurbaha la imaado aad iyo aad dad badan horta faniyo laga qaadaa oo qosla ani wallahi taa markaan soo xasuusto ma aragtay aad iyo aad baan u qoslaa markaas soo xasuustay ana maalinta igu yaab badneed markaas waxaan joogaa u badantay 3 beri 4 beri gobolkan ma ahayn magaaladan ma ahayn magaalo kalaan ka imaaday haye markaas maalinta ilaahay markii iskuulaan aaday iskuulka markaan ka soo baxnay ardaydii dhan waxa loo waday trip haye tripkii markii loo waday tripkii aan aadnay markaan waxay ka mid ahayd meel waxa ku jirta oo magaciisii oo shopping wax laga gadanayo lagu soo tusaayo adi marka magaalada ku cusubta meelo badan ay ku geynayaan gaalada aad iyo aad waa la soo dadka la soo kala baraya wadamadii waar si systemka wax loo gato systemka loo adeegto systemka magaciisii oo lifting hata loo raaco ayaa lagu tusaayo dadka qaar aan ka saynin aniga waxaan ka imaaday magaalo kale oo shidan Nairobi oo adiga iska waxaan haysato aad iyo aad alxamdulillah horaa u soo maray waxaas dhan markaan waxaa dhacday naag Sri Lanka ay hor socoto haye la ilaaha illa marka naagta soo xasuustay ilaa tu ana yaabo haye naagta Sri Lanka ahayd waxay kortay jaraanjarada soconaysa haye
horta hal saac kor alla mugtahay go ahead ay dhahday naagta markaas naagta saas u fiirisay way ka aamustay mar labaad la lahay shibay dhahday markii saddexaad waxa gacanteeda inta saas loo qabtay waxa lahay kan kor dadka qaar waxaa jirta hadalka magaciisa aan fahmaynin oo wadan marka aad ku cusub tahay dada tilmaanta ku dheeray aad iyo aad fiiri allah go mis afka saayaan naagta madaxiisa soo lahay barba ninkii naagtay fiirinaysaa mar ayada magaciisa dadka kale fiirinaysaa markii dab waxay kortay jaranjaradii markii dhex bartanka ay marayso ma soo fakana intay dhacdo way iga hor imaaday ma soo dhacday ha laa ilaaha illa maxamed rasuul hay anigayba dhajijibin lahayd qofkii ugu horeeyay haddana gadaasha taagnaan ani la ahaa saddex markay soo fakatay wallahi bilaa war hal gacana jaranjarada ku qabsaday hal gacana magaciisa ayada kusoo qabtay way sii socotaa miskiinta waan qof weyn oo iska ahayd hadii marka taas ay ugu qosol badnayda magaciisa aan la yaabay wallahi wax qosolaad aragtay aad iyo aad waa qurbahan haddii la yidhaah waa laga sheekeynaa ma aragtay may wax badan oo jirta oo magaciisa lala yaabay ani waxaan kaaga sheekeynaa sheeko kale cajiib la igu dhacday markaan qurbaha imid ahayd waxaa jirtay waan horta kaarbangi baa lay siiyey wiil reer xamar aba lay qabto la yidhi u turjubaan markaa wuxuu dhahay kaarkan waxaa lagu dhahooyaa ani markaas waa iska yaraa kaarkan waxaa lagu dhahooyaa mashiinka geli xaafadiinu ku yaala mashiinka geli xaafadiinu ku yaala haa mashiinka xaafadiina ku yaala geli numberkan secret waa dadka ka qari garaac lambarka meesha ku garaac lacagta kala soo bax waxaan dhahay wax secreta waxaan u aqaanaa wax ay ka dhacday moogtahay jaf baa soo xaafadda markaas dadka xaafadda areada loo yaqaanaa ani xaafadda guriga dhexdiisa u aqaanaaba waan soo cararay guriga ka dhex raadiyaa mashiin haa anigana waxoogaa gabas ka hayo wadankii waan ka imaaday kiga weynaa ku hadlaysay haa bas aga warkan meesha gurigii ka dhex raadi mashiinkii ninku sheegay ka dhex raadi waan iska aamusay oo waxoogaa guriga mashiin iimiyaan maxaa u dhigaysa dada ma dhihin kuma noqon ninkii la tagba oo lagaba tago meesha lagu kala tago gurigaada mashiin kuma ogin ma kuma waxaan sida meel gidaar bu ku yaalaa bay guri moogtaa buildingkaas ka raadinaysaa adi gurigayga dhexdiisaan ka raadinaya albaabka soo galan ka dhex raadinaya war cusub waad maqlaysin wax meesha ka dhacay maalintii dambe waan iska gaali jabkeeda waa qarsaday ilaa oo gaala naga dhigin jabkaygaa iska qarsaday waan iska aamusay guri ka dhex waaye waxaan isiri waa iska dheh haa kaarka haysatna waa kaar bangi haa waan fiiriyey meesha ku yaalo ilaa amarkaan oo iska socdaa waxaan arkay magacii kaarka igu yaalay magacaasoo isleh meel ana wax kasoo adeeganaya waaban garta waa kaas kii aan tegay meeshii baan tegay kaarkii baan geliyey lambarkii sidii lale hareerahan iska fiiriyey waan garaacay 20 baan kala soo baxay okay kaarkii baan markaas soo qaaday 20kan kala soo baxay 20kii markaan kala soo baxay gurigaan iska imiday waaban helayba dee waan iska aamusnaa cidina ma ogeyn moogta jabkay soo maray bas maalintii dambe 20 baan kala soo baxaa wax ka badan ma aqaano maalintii dambe lacag badan baa igu jirtay bankiga gabadhaan saaxiibna israacno iyadana waxba iga soo horreynin oo wadanka iyadana iskaga cusbeyd waxaan dhanaa balnakaan meeshaan wax kasoo raadsana kasoo gargaraacna cid markaasna caawinaysa iyo wax annagaaba isla qumanba khatar baan isla nahay meeshii bankigii baan tagnay waan garaacay 20 baa kasoo baxay waan ku celiyay 20 kale walaba meesha lacag badan baa ku jirtaan dhahay hareeraha iga istaaga balan kasoo guray waan geliyaa bankigii 20 baan kasoo saaraa waan geliyaa adu 500 ba waxaan uga soo saaray 20 subxaan allah markii ugu dambeysay qarshi la-aan soo soconta markii ugu dambeysay geliyo 10 baa ii soo baxay jeebadaan kasoo buuxiyo gurigaana midayo cawo weyn baa u gogolon san lacagti ku daadinay saan gurnay marka kula socdo isaga naftiisa adig kuma dhaamamiya halkan aanu qosol ba nafti naga waan aragnaa inaan waxba garanay laakiin waxaan sameynaa
dantii asaasna tiri moogta waana Odayga qasab midna kula kasoo haray. qasbat oday iyo waxna caawinayaana ma jirin markaas bes wallahi maalinta saddex maalin taariikh la baahayd gabadha saaxiibtay halkaas ka salaamaya sabaaxay waan ku salaamayaa maalintii xasuuso aan 20 ka usoo guraynay lacagta dhammaantiin aad iyo iyada waxay isba dhaaway aad iyo aad baan dhammaantiin idin wada salaamayaa caaw sheekada inta inoogu joogto sheekada qurbaa insha Allah waan soo badin doonaa aniga caasho insha Allah waxaan soo wadnaa dad badan YouTube la nagu jira jirto insha Allah ayaga aad iyo aad alaab badan baan soo wadnaa like-ta iyo share-ta iloobin walaalayaal subscribe-ka insha Allah subscribe yaan la iloobin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وناكسن وينوي next time إن شاء الله